Aragga indhaha wuxuu ka mid yahay lixaadka aadanaha kuwooda ugu muhiimsan ee lagama maarmaanka u ah nolosha qofka. Marka laga soo tago muhiimadda aragga oo aan la qiyaasi karin, waxaan sheekadan ku eegaynaa dhibaatada uu aragga ku hayo isticmaalka aaladaha casriga ah sida taleefannada iyo kombiyuutarada. Waxaan si qoto dheer ugu eegi doonaa sababaha dhalinyaro badan ku keena hoos u dhaca araggooda. Waxaa waayadii dambe soo badanayay dhalinyaro xiran muraayadaha kordhiya aragga, taasoo inta badan ku sababta arag yari ay ka qaadeen daawashada shaashadaha wax laga arko. Arrintan ayaan wax ka weydiinay dhakhtar ka mid ah dhakhaatiirta daaweysa xanuunada indhaha ku dhaca, isagoo sharaxaad ka bixiyay sababaha keena in aragga dhalinyaro badan uu daciifo. Technology laftirkeeda waxyaabo ay sababtaa jirto sida computer vision syndrome oo shaashadahana isticmaal laftirkeeda wuxuu leeyahay indha xanuun uu leeyahay. Wuxuu leeyahay eye strain wax la qofka indhihi daalaan marka qaar uu madax xanuun oo ka dareemo. waa waxyaabaha kaliya oo la xaqiijiyay in ay shaashadaha ay adeegsadaan inay keeni karto shaashadaha. Marka laftirkeeda hadartaan dhalinyaro walba imaado lama dhihi karo shaashada iska dhaaf ama computerka iska dhaaf lama dhihi karo, laakiin talooyin jar mar walba aan siiyo oo aan leeyahay sharci waxaa jirgahdo 2020 oo ah 20 daqiiqo walba oo shaashada qofka isticmaalo 20 second wuxuu fiirinaa meel 20 feet u jirto ama maartona mobilka iska haayo taas waxay keeni kartaa waa halka qaab oo keeni karto daciifida aragga fog. waa mid loo aaneyn karo in dhalinyarta hadeertaan iyo dadkii hore in daciifida aragga fog ay ku badan karo. taasna wuxuu kaga hortagi karaa in uu noloshiisa qaabka uu isticmaalayo sida computerka mobilka markuu wax yarima nasiimo uu ka sameeyo. dadka da'dooda ay ka hooseyso 30 sano ayaa sanadihii dambe ah kuwa caadiyan macaamiil u noqday dhakhaatiirta indhaha oo talooyin iyo daawooyin u doonta. Dhakhtar Axyaa-udiin Cali Cusmaan wuxuu mar kale sharaxayaa farqiga arag ee u dhaxeeya dhalinyaradii hore iyo kuwa maanta. waxyaabo waxaa jiro markii dadkii hore iyo dadkan la isbardhigayo sida tusaale ahaan dadkii hore habkay u noolaayeen iyo baahida ay u qabeen nolosha iyo hadeertan way kala duwan tahay. tusaale ahaan dadkii hore waxaa laga yaabaa xaaladaha sida myopia kale iyo daciifida aragga fog iyo daciifida aragga dhow inay baahiyo badan ay u qabin oo laga yaabo dad yaroo kale oo aad u yaroo kale inay isticmaalayaan computerka iyo mobilka inay isticmaalayaan oo xataa laga yaabo qofkaas ama buug markuu aqrinayo kala dhahay professor waa okiyaalo wataa. laakiin hadeertaan dadka hadeertaan oo dhalinyarta oo kale xataa waxaa laga yaabaa canugii 7-8 sano jiro sida professorkii hore u noolaan jiro oo kale inuu u nool yahay wax walba uu noloshiisa ugu baahan yahay sanadihii hore way kala duwan yihiin. Social media ayuu dhakhtar Axyaa ugu gudbiyaa muuqaalo talooyin ah dhalinyarada ayaana inta badan kala soo xiriira barihiisa bulshada. Saara Xasan waxay ka mid tahay dhalinyaradaas ku xiran dhakhtar Axyaa. magacaygu waxaa la Saara Xasan Jimcaale dhakhtarka Axyaa-udiin waxa uu maaday baaritaan maadaama uu wacyigelin badan social media oo dhigay indhaha. waxaa social media sida make-up-ka oo kaleeto waxyaabo badan oo wacyigeliyay sida indhaha ahayd aragga dheer iyo aragga dhow. wuxuu kaleeto naga wacyigeliyay waxyaalaha oo fitamiin la'aanta ah keenayso kaleeto. Indhaha oo araggooda daciifo ama la waayo wuxuu qofka ku sababi karaa hawlgab iyo niyad jab noloshiisa khatar gelisa. waxaana nasiib darro weyn ah in qalab waxyeeladiisa laga gaashaaman karo ay qofka mustaqbalkiisa waxyeeleeyaan, iyadoo dhalinyaradu ay tahay kuwa ugu badan dadka wajaha xaaladaas, kuwaas oo looga baahan yahay inay ogaal u lahaadaan khatarta ka soo wajahda aaladaha casriga ah sida ay uga gaashaaman karaan. Mulka Cabdiraxiin Xasan, Muqdisho Cable TV, magaalada Muqdisho.